maanta waxaan isugu nimi inaynu gabagabadii shirkii aynu soo waday dhowrka cisho war murtiyeedkii ka soo baxay aynu sheegno maadaama dadkoo dhan beesha caalamka adduunkoo dhan layna ka sugayo marka insha allah waxaan gedangelayaa war murtiyeedkii taariikhda labada bisha koowaad 2025 maanta oy taariikhdu tahay 2 January 2025 waxaa soo gabagaboobay shirweynaha beelweynta warsangeli oo looga arrinsanayo colaadda ka oogan degmada Ceerigaabo kaasoo ka qabsoomay magaalada Ceelbuur gobolka Sanaag shirkaas oo uu ku baaqay suldaanka guud ee beelaha warsangeli sultaan Siciid sultaan Cabdisalaam ayna soo ajiibeen dhammaan buurtida dhallinyarada qurbajoogta waxgaradka beesha dhammaantood haddaba gobolka Sanaag oo bedkiisu dhan yahay 55,000 oo kiiloomitir iskuweer 35,000 oo kiiloomitir iskuweer oo ka mid ah waxaa dega beelweynta warsangeli halka degmada Ceerigaabo ay wada degaan 4 beelood 4 degmo ee soo haray 3 ka mid ah waxaa gaar u leh beelaha warsangeli intaas kadib colaadihii ka aloosmay dalka Soomaaliya iyo burburkii dawladda dhexe November 1993 afartii beelood ee ku sugnaa degmada Ceerigaabo waxay ku nabdeen heshiis ka madax bannaan nidaam maamul oo ah nidaam qabiil wada deganaansho ah nasiib darro 27 November 2024 waxaa magaalada Ceerigaabo ka qarxay duulaan qorshaysnaa muddo dheer laga soo shaqaynayay oo lala beegsaday beelaha harti waqooyi kaas oo ay ka dhalatay dhimasho dhaawac boob hantiyeed barakac iyo baro kicin dhammaan dadkii ku abtirsanayay beelaha hartiyeed duulaankaas waxaa ka horkacayay maamulka iyo ciidamada Somaliland oo ay weheliyaan maleeshiyad beeleed ku abtirsada SSB G36 iyo wax la mid ah oo ciidamadoodii ay ku sheegteen maamulka qaar ku sheegteen dhinac dagaalamayay ugu dambayn shirku markii uu si qoto dheer u falanqadeeyay gaboodfallada iyo waxyeelada ka dhalatay falalka guracan ee lagula kacay qaybo ka mid ah bulshada markuu si mug iyo wada tashi leh uga arrinsaday dhibaatada taagan shirku wuxuu go'aamiyay qodobada soo socda qodobka koowaad shirku wuxuu guddoonsaday in ku dhaqanka shariicada islaamka ay u tahay marjac wax kasta oo laga wada hadlayo isla markaana shirku wuxuu go'aamiyay midnimada beelaha warsangeli in ay tahay muqaddis qodobka labaad laga bilaabo maanta shirku wuxuu caddaynayaa in beelaha isaaq ay buriyeen heshiiskii nabadda 11 bishii 11aad 1993 ee 4 beeloodka ee lagu wada deganaa magaalada Ceerigaabo gebi ahaanba heshiiskaasu waa burburay sidii loogu heshiiyey maadaama ay ka talaabeen gebi ahaanba heshiiskaasu waa burburay qodobka saddexaad shirku wuxuu go'aamiyey in si buuxda oo mug leh loo difaaco dadka deegaanka iyo hantida beelweynta warsangeli gaar ahaan degmada Ceerigaabo qodobka afraad shirku wuxuu magacaabay guddi ka kooban 35 xubnood oo u xil saaran maaraynta iyo fulinta qodobka saddexaad waa qodobka aan kor ku soo sheegnay oo difaaca dalka ah qodobka shanaad shirku wuxuu caddaynayaa dhammaan waxyeelooyinkii ka dhashay gaboodfalladii maamulkii Somaliland iyo maleeshiyaadkiisii beelaysnaa ku beegsadeen bulshadii ka soo jeeday beelaha harti inay iyagu qaadanayaan mas'uuliyadda cawaaqib xumada ka dhalata arrintaas qodobka lixaad shirku wuxuu ku baaqayaa beesha caalamka iyo hay'adaha gargaarka bini'aadanimo
in ay gurmad degdeg ah u fidiyaan bulshada laga soo barakiciyey deegaanadoodii iyaga oo xilligan ku sugan duruufo adag hoy la'aan cunno la'aan biyo la'aan qodobka 7 ugu dambayn suldaanka guud ee beelaha warsageli suldaan siciid suldaan cabdisalaan wuxuu ku baaqay in 15 February 2025 shirweyno isugu yimaadaan beelweynta warsageli magaalada Ceelbo kaasoo lagaga arisanayo aayahooda gabagabadii shirka qodobka ugu dambeeya ee 7 sidii horeba looga saqariyay wax badan baa warsageli yiri baa shir la qabto ama bana ayna suurtoobin maanta shirka lagu baaqay waxa la doonayaa dadka diasporada oo qurbaha u badan oo Facebook iyo WhatsApp kun ma saar la yeelo waxaan ka codsanaynaa inay si mugle iyo miisaan leh uga soo qayb galaan kuwa dalka joogana meel kasta ay jiraan inay shirka isugu yimaadaan lagaga tashanayo aayahooda xaaladaha dalka ka taagan warmurtiyeedkii intaas ku egyahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi